hore ayaa loo yiri jaceylku waa indhoole laakiin maxaa dhacaya haddii laba qof oo indhaha naafo ka ah ay isjeclaadaan waa jaceyl gabi ahaanba ka duwan midka caadiga ah waa jaceyl aan ku dhisnayn muuqaal wanaag iyo waliba qurux ayuu yiri Niraj Gera oo ah sawir qaade u dhashay dalka Hindiya oo abaalmarino kala duwan ku guuleystay musalsal sawira oo uu dhawaan soo bandhigay ayaa uu Master Gera kaga sheekeeyay qisada nin iyo waliba haweeney araga la oo isjeclaaday wuxuuna sheekadooda ku cabiray ilaa iyo 13 sawir maalin maalmaha kamid ah bishii July ee sanadkii hore waxaan ka dukaamaysanayay dhismaha Kanaaf ee ku yaala magaalada New Delhi waxaan arkay lamaane qurux badan way socdeen gacmaha ayayna iska haysteen iyaga oo dhoola cadeynaya oo sheekeysanaya ayuu yiri Master Gera oo la hadlayay BBC-da lamaanahan waxa caawinayay nin kale oo ku hogaaminayay qaybaha kala duwan ee dhismaha Master Gera wuxuu sheegay in xaaladda lamaanahani ay aad u soo jiidatay waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan arko lamaane araga naafo ka ah sida aawadeed uu u tagay wuxuuna ugu yaboohay inuu geeyo astaanka intii aanu sii soconay wadada waan sheekeysanay markaa waxaan weydiiyay haddii ay raali ka yihiin in sheekadooda la faafiyo taasna way iga ogolaadeen musalsalka uu sameeyay sawir qaaduhu wuxuu si buuxda ugu sharaxay qisada jaceylka dhabta ah ee Deepak Yadav iyo waliba Arti Chorsia oo labadooduba da'doodu tahay 22 sano jir markii ugu horeysay waxay iska barteen Facebook-ga Deepak waxa uu sheegay in isaga iyo waliba gabadhuba ay isticmaali jireen telefoon casri ah oo laga heli karo adeegyada loogu talagalay dadka araga naafada ka ah